بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaynu ka hadlaynay barnaamijkeennii ku saabsanaa duruus ramadaaniya. waxaan kelmadda tan rabaa inaan kaga hadlo laylatul qadriga iyo qiimaha uu iska leeyahay, iyo muxuu ahaa halka ugu rajada badan ee muxuu ahaa la rabo qofka muslimka inuu ka baaro. yaan kaga hadli doonaa kelmaddeena inagoo weliba ku jirna tobankii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan. walaalyaal, habeenka isaga ah ee la yiraahdo laylatul qadriga horta waa habeen qiimo leh oo muxuu ka mid yahay habeenada Ilaahay habeenka ugu qiimaha badan weey. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka kariimka ayuu ku sheegay habeenka isaga ah: inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraaka ma laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alf shahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. هبين كان وهبين قالئة. إلهي وحو الشيغي هبين كإساقة إنو كقيمة بدنيها كن بلاد kun ka bilood muxuu ahaa markii sana ahaan loo fiiriyo waxa la sheegaa 83 sano iyo 4 bilood. cibaadada habeenka qofka Ilaahay uu waafajiyo wuxuu ka qeyr badan tahay kun bilood ee ka qeyr badan tahay waa 83 sano iyo 4 bilood. marka waa qaali oo muxuu ahaa wax muhiim oo rabo in laga faa'iideysto mudan way. waxa kale oo muhiim habeenkan isaga ah waa habeen khaas u ah ummadan ayada ummadda Nabi Maxamed ayuu gaar leeyahay habeenkan isaga ah. taana waa fadli Ilaahay ummadda Ilaahay uu siiyay maadaama cumrigeedu uu gaaban yahay oo Nabigu Alayhi Salaam cumriga ummadeedu waa 70 ilaa 60 uu yiri oo cumriga sida uu gaabay ayuu Ilaahay wuxuu ku maneystay habeenkan isaga oo qaaliga ah. waxa la sheegay haweeney kamid ah ummadihii inaga horeeyay reer Banu Israa'iil kamid ah yaa waxa ka geeriyooday wiil yar yaa ka saqiiray markaas aad ayuu u ilmeys sidii uu ooynays waa la aamusin waay. markaas waxa lagu yiri oo adi maxaad la ooynaysaa canuga ka saqiir meed la ooynaysaa canuga saqiiray 100 sano u jiraa. marka waxa lagu yiri canugaaga 100 sano u jiraa ka saqiiray waxa la waxa iman doonto ummad la umma Muhammadiya oo aakhir zamaanka iman doonto oo cumrigeedu uu yahay muxuu ahaa 60 ka iyo 10 meelaha uu yahay boqol qofkii gaaraba marka qaar muxuu ahaa ay tahay waxyaabo inta gudbaysa ay tahay in aad u yar. haweeneydu way iska samirto way aamusto. marka inaga maadaama cumrigeen uu yahay cumri gaaban iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadna wuxuu siiyay habeenkan qaaliga oo laylatul qadriga. marka Ilaahay qofkii cumri dheer uu gaarsiiyo yaani isla markaana waafaq habeenkan isaga ah waxay tahay qof liibaanay waa marka 80 iyo muxuu ahaa iyo 3 sano 4 waxa laga inuu cumrigaada uusan gaarin. marka cibaado inta la eg oo qiimo badan habeenkaas dad gaartid marka waa wax aad iyo aad u qiimo badan. marka maadaama sida ay tahay waxa muhiim ah in qofku isku hawlo sidoo u raadin lahaa inuu dadaalo isla markaana uu muxuu ahaa una marna una ka gaabin habeenka isaga ah. marka habeenkaas waa habeen fadli badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala malaa'iktiisa ay soo deganayso oo malakul jibriil uu ku jiro waliba uu hogaaminaya soo deganayso. marka waa habeen xasilooni iyo deganaan ay jirto oo muxuu ahaa shar iyo dhibaato aysan jirin oo Ilaahay uu leeyahay salaamun hiya hatta madlac al-fajr ilaa salaad subax laga gaar fajrka wax muxuu ahaa dhib ah ma jiro. waa habeen degan oo muxuu ahaa dhibaato mashaakil uusan jirin iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku tilmaamay. marka habeenka isaga ah qofka Ilaahay uu waafajiyo
محوها استاغا إلهي دنبغيسو دافيا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه النبي عليه الصلاة والسلام بقفكي استاغا habeenka isaga qadriga isagoo waliba iimaan iyo rumayn ay ka tahay ajr xusubsi ilaahay wuxuu deenayaa dambigiisa hore ilaahay u deenayaa marka waa muhiim qofka inuu muslimka inuu ka faa'iideysto yaa la rabaa qofkii hadda habeenka isaga aan waafaqin muxuu ahaa ilaahay uusan waafajinna waxay ka dhigan tahay khayrka oo dhan in macnaha qofkaas laga hoojiyo nabi wuxuu yiri man hurrima khayraha faqad hurrima alkhayra kullah qofkii habeenka khayrkiisa yani معناها laga hooji uusan waafaqin waxay taa waa qof khayrko idin laga hooji marka waxa muhiim qofka muslimka inuu muxuu uu ku dadaalo habeenka isaga uu muxuu uu sidoo u raadin lahaa iyo khayrka ku jiro sidoo kaga faa'iideysan lahaa insha Allah ta'ala kalmadeena aad soo aadan ayaan qaybta dambe ku faahfaahin doonaa leelatul qadriga wa jazaakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh